Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh waxaan halkaan idinku soo bandhigaynaa barnaamij kooban oo la xiriira muranka badda ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo dalka Kenya. barnaamijkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Iimaan Cali Cabdi daawasho wacan. sida aynu wada ognahay muran badeedka dhinaca xuduudka ee u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa uu soo bilowday xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif, isla markaana uu ra'iisul wasaaraha ahaa Cumar Cabdirashiid, wasiirka arrimaha dibaddana uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur. damaacigaas biyaha Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa waxa uu salka ku hayaa dhul aad u weyn oo dhinaca biyaha ah oo qani ku ah saliidda iyo macdanta, taasoo dowladda Kenya markii ay aragtay in tabardaro ay jirto oo wadanka Soomaaliya uusan lahayn awoodii uu horey u lahaan jiray, ay heshiis marin habaabina la gashay dowladdii xilligaasi wadanka ka talinaysay, kaasoo ay ku sheeganayso biyaha Soomaaliya. mar la weydiiyey madaxweynihii xilligaas hayay talada Sheekh Shariif oo uu wareystay wariye ka tirsan BBC-da oo ah wariye Cabdirasaaq Catoosh, ayuu wuxuu kaga jawaabay arrinta la xiriirta muranka badda iyo heshiiskaas sida tan. laakiin haddana waxaa dhacda nasiib darro dad badan in ay sameeyeen propaganda ka soo horjeeda heshiiskaas. baarlamaanka sida aad la socotid waxa uu xaq u leeyahay waxay tahay heshiis inuu buriyo, laakiin kan heshiis ma ahaan waxa ay afgarad si kastaba ha noqoto. dalalka dariska hadaysan jirin wada hadal oo wixii lagu kala aragti duwan yahay aan laga wada hadlin, taas waxay keenaysaa dhibaato ayay keenaysaa. marka waxaan u cadeynaa shacabka Soomaaliyeed cid maanta u taagan inay dalkaas qayb kamida ama taaka kamida bixiso ma jirto. heshiisna ma ahayna wuxuu ahaa isafgarad. ujeedada laga lahaana waxay ahaaday in UN-ka la geeyo maxay ahaato codsi cusub in la geeyo, maadaama dhowr iyo 10 sano aysan arrintaas u dhicin. arrintii hadda waa dhacday oo waa la gaarsiiyey. hadda qorshaha loo baahan yahay wuxuu noqonaa in qoraalkii oo tiftiran iyo xuduudda anagu aan sheeganayno aan leenahay badeena waa ku egtahay in la gudbiyo. taasaan aaminsanahay qof kasta oo qabay shaki inay uga bixi doonto. marka maadaama hadii heshiiskii baarlamaanka uu diiday ka madaxweyne ahaan dad badan ku dhageysanaya, maxaa laga qori karaa heshiiskaas ma u dhamaatay ama isgafaqaradkaasi wax dib ugu soo noqonayo ma ahan Soomaaliya qadiyada Soomaaliya? heshiiskaas dantii laga lahaa waa laga gaaray, waa laga gudbay. hadda waxaa loo baahan yahay si rasmi ah in loo diyaariyo yani isafgarad oo heshiis. arrinta heshiiskaas ayaa waxay sababtay in ummadii Soomaaliyeed ay shaki ka muujiso ku saabsan badda oo ay u arkayeen in dowladda Kenya ay ku xadgudubtay, isla markaasna ay biyihii Soomaaliya damaaci ka galay. waxay arrintu sidaas ahaataba dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay dacwad hor dhigtay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Hague, taasoo ay ku dacweysay in dowladda Kenya ay ku xadgudubtay biyihii dalka Soomaaliya. arrinta ku saabsan murankaas badda ee dowladda Kenya ay ku damaaciday biyaha Soomaaliya ayaa waxay noqotay mid hor istaagta sumcaddii ay lahaayeen siyaasiyiintii xilligaas loo aaneynayay in heshiiskaas ku lug lahaayeen si markaa ay mar kale u qabtaan majaraha dalka. arrintaasna waxay sababtay in madaxweynihii lagu tuhmayay oo hadda sidaan soo daawanay horey u qirtay inuu heshiiskaas ku lug lahaa uu gabi ahaanba beeniyo inuu wax ka ogaa, isaga oo markaa isaga riixay ra'iisul wasaarihiisii iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda. idin jawaabay wasiirka idin jawaabay aniga dhabo arkinba waqad lagu saxiixana ma arkin, meel lagu saxiixana ma ogi, waxna kama ogi. haday fiican tahay dadkaas iskale, haday xumaatan ayaga iskale. haddaba markii la doortay xukuumadda cusub ee ay madaxda ka yihiin
madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayay arrintii waxay sii labalxaadiyeen dacwadii ka dhanka ahayd Kenya iyagoo mar labaad dacwadii sii xoojiyay isla markaana la xiriiray maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICJ si ay markaa hawsheedii halkii uga sii wadaan balse waxaa dhacday nasiib darro in dacwadaas dhowr jeer dib loo dhigay isla mar ahaantaasna markasta dalabka Kenya uu muujinayay in wada hadal iyo heshiis lagu dhameeyo intii maxkamadda caalamiga la hordhigi lahaa dalabka ka imanayay dalka Kenya ee ku saabsanaa in wada hadal lagu dhameeyo arrinta ee aan la geyn maxkamadda caalamiga ayaa gabi ahaanba waxaa ku gacan sayray madaxda Soomaalida oo ugu horeeyaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo waliba baarlamaanka oo diiday in arrintaa wax wada hadal ah laga gado taasina waxay sababtay inay ka caraysiiso dowladda Kenya oo ku hanjabtay dhowr jeer inay xoog ku muquuninayso isla mar ahaantaasna qaaday waxyaabo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda oo ay soo ceyrisay safiiro iyo diblomaasiyiin Soomaali oo ku sugnaa dalkeeda hanjabaadda dalka Kenya ee la xiriirta muranka badda markii laga diiday in wax wada hadal lagala galo waxa iyaguna dhinacooda kaga jiray oo aan ka maqnayn siyaasiyiinta ka soo jeeda dhalasho ahaan Soomaalida balse Kenyaanka sida ninka la yiraahdo Aadan Barre Ducaale uu halkan ku cadeynayo inuusan marna u ogolaan doonin in tallaabo sida uu sheegay dalka Kenya ay leedahay ay ama Soomaaliha ahaato ama cid kale ha ahaatee ay qaataan ma ogolaanayo hal cidi ama hal yar oo dhul ay leedahay wadanka Kenya ama bad ahaado ama dhulka ahaado inay wadan kale ama Soomaaliya ama Ethiopia ama Djibouti xuduud ama South Sudan inay qaadato kuwii Soomaalida u dhashay hadii ay sida leeyihiin maxaad ka filaysaa kuwa kale ee ka soo jeeda wadanka Kenya aan Soomaalida ahayn dhabtii waxaad dareemi kartaa inay arrintaasi tahay arrin loo soo tafaxitay in la boobo biyaha dalka Soomaaliya haddaba markii dib loo dhigay dhowr jeer dacwadii ka dhanka ahayd dalka Kenya ee Soomaalidu ku dacweynaysay in badeedii ay ku xadgudubtay ayaa waxaa jirtay in dhowr jeer maxkamadda caalamiga ICJ ee wadankaasi Netherlands ku taal ay markaa dib u dhigtay dib u dhigaasi wuxuu sababay shaki fara badan oo Soomaalida dhankeeda oo in mar walba dalabka Kenya la yeelo ay ka cabsanayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed in arrintaasi ay wax kale ku hoos jirto taasi waxay sii labalxaadsatay markii shirkii qaramada midoobay la isugu tagay magaalada New York dabadeedna ay halka ku kulmeen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo taas oo ka soo shaqeeyay Cabdulcasiis Azizi oo wadanka Masar madax ka ah uuna isu keenay labada nin si ay markaa khilaafkii jiray guud ahaan sida markii saxaafadda uu isagu u sheegay Uhuru Kenyatta khilaafkii dhinaca badda ay Soomaaliya iyo Kenya ku xalin doonaan si isafgarad ah oo wada hadal ay arrinta ka gali doonaan Policies of the chair of the African Union, President Sisi, he put us together, encouraged dialogue. Dialogue is what Kenya has always stood for. We believe that the only way to resolve problems is through dialogue, not through confrontation. ayaa waxay keentay caro aad u badan oo ka imaanaysay muwaadiniinta Soomaaliyeed isla markaasna baraha bulshada aad loogu falanqeynayay taasoo loo arkay khiyaamo uu sameeyay madaxweyne Farmaajo oo sida muuqatay markaas oo uu cadeeyay madaxweynaha dalka Kenya hadalkiisi marka la raaco ay noqonayso khiyaano laga galay dalka iyo dadka Soomaaliyeed arrintaas ayaase waxay dib rajadii u soo celisay isla mar ahaantaasna caradii ay yareysay kadib markii madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo uu sheegay inaanay wax wada hadal ah ka galin kalena galin madaxweyne Uhuru Kenyatta dhinaca muranka badda arrintaasna ay u deynayaan oo kaliya kana sugayaan go'aanka ay soo saarto maxkamadda ICJ oo ay hadda dacwadaas hortaal Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice, the highest legal authority of the United Nations. We are very pleased that the court found that it had jurisdiction to resolve the dispute and that it scheduled final hearing on the merit of the case for the first week of November this year.
inuu ku sheegay khudbadiisaba waxay ahayd qorshaha loo qoondeeyay in la qabto dacwadaas horraanta bisha November ee sanadkan dib u dhigistii mar kale 8 bilood oo ahaa mid ku dhow dalabkii ay dawladda Kenya ku sheegatay in loogu dhigo dib muddo hal sano ah ayaa waxa uu mar kale soo nooleeyay caradii iyo shakigii ay ummadda Soomaaliyeed ka qabeen dib u dhigaas joogtada ah taasoo loo arki karay in dawladda Kenya ay dan ugu jirto maadaama ay u arkaysay in haddii si toos ah dacwadaas loo guda galo lagaga guuleysan karo balse ummadda Soomaaliyeed badankeeda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxay muddadanba soo jeedinayeen oo ay baraha bulshada isku weydaarsanayaan arrin la xiriirta shakiga ay ka qabaan aamuska dawladda Soomaaliya ee la xiriira dib u dhigaas oo aanay muujin dawladda Soomaaliya inay ka xun tahay isla mar ahaantaasna aad moodid inay taageersan tahay qorshahaas dib loogu dhigay oo mid ay dan ugu jirto dalka Kenya balse looba joogay waxa ay dawladda Soomaaliya ka tiraahdo arrinta badda ee muranka badan dhaliyay daawadayaal intaasna waxaan maanta ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii koobnaa ee ku saabsanaa muranka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo sida ummadda Soomaaliyeed u aragto tan iyo intaan barnaamijkan oo kala ku kulmi doonana waa Imaan Cali Cabdi oo idinku dhaafaya nabad gelyo oday koofi qaatiyo guuray intuu iga nool yahay kaba maysid kaydkiyo kurskiyo shidaalkee